markan waxaan aadi doonaa gobolka Shabeellada Hoose. qaarkood dadka ku sugan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxay codsanayaan in maamulka cusub ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya in ilgooni ay ku qabtaan gobolka Shabeellada Hoose maadaama uu sheegeen in dadku xaaladooda nolol xumo ay sii xumaanayso dhanka amniga iyo nolosha caadiga ay ku sheegeen. Cabdiwali online oo ah wariyaha telefishinka ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose ayaa warbixintan ka soo diray. iyadoo dhowaantan si rasmi ah loo caleemo saaray Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagaran oo noqonaya madaxweynihii labaad ee uu yeesho maamulka Koonfur Galbeed oo ka kooban gobolada Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bakool. inkastoo madaxweynuhu uusan weli soo magacaabin golihiisa wasiirada balse looga fadhiyo in dhowaantan uu ku dhawaaqo ayaa iminka bulshada ku dhaqan gobolada Koonfur Galbeed waxa ay ka filayaan maamulka cusub inuu la yimaado isbedel dhab ah oo laga dareemo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. haddaba gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa bulshada ku dhaqan waxa ay ku sheegayaan in maamulkii hore uu ka gaabiyay wax ka qabadka dhibaatooyinka amni la'aanta iyo horumarinta adeegyada bulshada ee deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Afgooye oo TV-ga Universal la wadaagay aragtiyadooda ku aadan nooca isbedel ee laga sugayo maamulka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. bismillaah madaxweynaha waxaan ka filan karnaa mudane Cabdicasiis Laftagaran isbedel oo aad u weyn oo dhab ah oo dadweynaha iyo Koonfur Galbeed ay u wada reexaan. gobol ahaan Shabeellaha Hoose waxay ka mid tahay saddexda gobol ee Koonfur Galbeed. Shabeellada Hoose xaqeeda ma heshaa waayigi dambe cabashooyin baa jiray. wallaahi anagu kuma dambaawi karno Koonfur Galbeed maba aanan ku arkin gobolka Shabeellada Hoose khaasatan maamul Koonfur Galbeed oo shaqeeya. waa gartay isbedelka aan filayno waa mid nuucay marka. isbedelka aan filayno waa mid ah in aan helno maamulka Koonfur Galbeed oo ka hana qaada gobolka Shabeellada Hoose khaasatan degmada Afgooye. waa gartay dhawaan madaxweynuhu wuxuu soo magacaabi doonaa golihiisii wasiirada balka bulsho ahaan iyo ka aqoon ahaan ra'yiga intaasi balka waran ku anagu khaasatan waxaan isleeyahay haddaan kula talin lahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya golaha wasiirada oo xulanayo in ay ahaadaan golo wasiiro oo tayo leh aqoon leh waayo arag ah. sidaas darteed marka haddii uu naga qaadanayo barnaamijkaas waxaan jeclaan lahayn in uu sameeyo aqoon-yahanadaas aan tilmaanay in uu soo saarto. Shabeellaha Hoose ee degmooyinkeeda aad buu u farbadin ilaa 9 degmood bay gaarayaan. dhaqaale badan baa ka soo baxa arrimahaasi ka waran dhaqaalaha ka soo baxa degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose sidii loo baahnaa kula muuqata in loo maareeyo iminka. wallaahi anigu ma arko wax dhaqaale ah oo la maareeyo oo gobolka Shabeellada Hoose khaasatan degmooyinkiisa waa degmooyinka ugu faraha badan dhaqaale ka soo gala maamulka Koonfur Galbeed mana arko wada sax ah ay ku baxdo wax dhaqaale ah. adigoo ka mid ah ugu dambeyn bulshada degmada Afgooye maxaa ugu baaqaysaa madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagaran? waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed waxaan u baahanahay gobolka Shabeellada Hoose khaasatan ilgooni ah inuu soo yeesho aan aragno maamul wanaagsan oo ka hana qaada khaasatan gobolka Shabeellada Hoose. waxaan u mahad celinayaa telefishinka Universal TV khaasatan wariye Cabdiwali Cali online oo ah nin aqoon-yahan ah oo karti leh oo in badan xogta degmada Afgooye khaasatan naga wareysta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. horta waxaan ugu mahad celinayaa maxaa TV-ga Universal online oo mahad celinayaa mid kale maamulka degmada Afgooye ka jiro maamul fiican waa horta ma xumo inkastoo oo maxaa culays badan ay saaran yihiin madaxweynaha Laftagaran maxaa ugu baaqaysaa Laftagaran isbedel nooc laga rabaa? isbedel badan laga rabaa sababtoo Shabeellada Hoose wali ma awnan imaan meelo badan buu tagay laakiin anaga nooma imaan. madaxweynuhu baraa waa uu tagay laakiin Afgooye ayuu soo imaanay degmooyin kale xiisa badan u qabnaa imaashihiisa ma faantay habeen imaan waa u taaganahay. waa gartay haweenka haddaan nahay midda labaad maamulka degmada Afgooye inkastoo oo ka cilada iyada ay tahay maxaa la dhahaa wax qabasho la'aanta ay
ka jirto laakiin waa ku qanacsannahay. duniya waxaa leedahay jidadkan xiran iyo wasaqda iyo qashinka iyo waxbarasho la'aanta iyo waxaasoo dhan waxaa leedahay jawiga waa okay hadda jawiga okay waa haddeetaan maxaa la dhahaa sida hore ma nihin lafta gareenaan sugaynaa isbeddelaa dhacaayo wasiirada lasoo magacaabayn waxaan jecelnahay wasiiro aan ku qanacsannahay ama oo wax qabasho tayo la qabanayo inuu soo magacaabo lafta gareen ma ogiye dad jiijiifanaya annaga in noola soo magacaabo raalli kama nihin haddaan gobolka shabeellada hoose sababtoo gobolka shabeellada hoose wax badan uu u baahan yahay sababtoo ah webiga hadda waa naga gursan yahay shaqooyin fara badan ay haweenka qabtaan dhalinyaradu hadda wax ma qabato waxay qabtaan ma lahan isboortiga wax ma qabto laakiin maamulku wuu shaqeeyaa shaqadan nuucee waa midda qabanaya intaas maqan yahay adiga hadda xafiis ma leedihiin waa leenahay xafiis haye way waxbarashadii wixii dhan waxaa sheegtay inaysan dayactirneen marka shaqada nuucee waay maamulka u haya hadda waxaa noo socda wasaaradda waxbarasho lacag la'aan ayaa bilaabatay mar dhow waa gartay ugu dambeyn madaxweyne lafta garan maxaad leedahay madaxweyne lafta garan aad u salaamaya salaan qaasaan salaama weliba oo haweenka aan ka socdo ayagana ay wakiishaan aan u mahadcelinayno sida sharafta leh oo u helay maxaa la dhahaa kursiga madaxweynenimada koonfur galbeed Soomaaliya ee ka helay haddana waan taageersannahay waana sugaynaa xiisa u qabnaa walaalkeen madaxweynaheena sharafta leh TV-ga Universal waxaa ka mid tahay waxgaradka degmada Afgooye ra'yigaaga bal cabir ku aadan isbedelkan la rabo ee koonfur galbeed inuu ka dhaco gaar shabeellaha hoose assalaamu calaykum Universal waxaa uga mahadnaqaa waraysiga iyo waraysanaysa oo aragtidayda ayaa uga mahadnaqaa waxaa dhihi karaa koonfur galbeed degmada Afgooye wax koonfur galbeed ma gobolka shabeellada hoose wax reer koonfur galbeed oo ka shaqeynaa ama ciidan koonfur galbeed oo ka shaqeynaa ama niman maamulka u qalmamo ma arkin ba anaga waa gartay niman ayaa aragnay oo iyakaba isa jiifo 5 saac urdada ka soo kaca xafiis la furo male hadda qaasahan degmada Afgooye taagana saacadan la taagan yahay xafiis furan ma jirto waxaa sababay niman shariif xasan kol lacag ka wada qaata meeshan oo la soo wada magacnimo warqad uu la yimid meesha waa gartay iyakoo gibi ahaantood inta isku tiirsaneen iyakaba isdagaalsan naftooda haye naftoodii aba isdagaalsanba maxaa ka shaqeeyaanba nabadda ama horumarka ka shaqeeyaan hadda marka maxaa leedahay maamulka koonfur galbeed waxaa ka codsanaynaa madaxweynaha cusub oo la doortay waxaa ka codsanaynaa maamul degdeg in lala soo gaaro gargaaray u baahan tahay degmooyinka gobolka shabeellada hoose dhammaantood anagoo nabadoonnada gobolka shabeellada hoose ka mid aad baad u mahadsan tahay madaxweyne lafta gaar hadda waxaad ka codsanaysaa in bedel lagu sameeyo Afgooye iyo degmooyinka kale gobolka shabeellada hoose wax maamul oo gaaro koonfur galbeed la dhaha maba jiraanba waxaa ku sababay shariif xasan ayaa qasay meeshaan dhammaan maamulada iyo dadka lacag ka wada qaatay gibigood lasoo magacaabay konta kuna dor 60 kuna dor laga soo magacaabay shacab ma mateli karaa waa gartay shacab ma mateli kara 60 kuna dor konta kuna dor laga soo qaatay shacab mateli lacagtiisu nabal raacdayna kaalintiina kan odayaal ahaan ka waran marka waxaa u sheegaa odayaasha degmada Afgooye ka jira ama ka jira gobolka kaalintiin ma qaadataan idinka annaga kaalayaasha labada isdagaasho walaalo waan dhexaadinaa waa isku waxayna sulux ayaa badanaa odayaasha ka shaqeeya arrimaha dhisidda maamul wanaagga ma kala shaqeysaan maamulka jira ama kala imaan doona xataa maamul oo kala shaqeyna ma arkin maamul oo kala shaqeyna ma arkin maamul dadka si qad ugu fahmo ogi qaasatan gobolka shabeellada hoose wax maamul oo ka jira ma jirto oo koonfur galbeed oo shaqo kara ma jirto ugu dambeyn waxaad codsanaysaa isbedel Soomaa isbedel curus codsanayna golaha wasiiradu soo dhisay nin aqoon leh oo aqoonta ma gobol kale ama dadka deegaanka u dhashay laga soo magacaabo dad aqoon leh way ka buuxaan dadka deegaanka kale ana wareysana si daacad noo wareysana Universal TV wariyo online ayaa ka aragnay gobolka shabeellaha hoose oo ay ku taalo madaxtooyada rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa degmooyinka iyo deegaanada uu ka kooban yahay waxaa ka jira baahiyaha helidda adeeg maamul oo dhammaystiran taas oo looga fadhiyo maamulka cusub inkastoo aan laga hordhici karin balse bulshada ayaa ku rajo weyn in madaxda cusub ee maamulka koonfur galbeed ay wax ka qaban doonaan arrimahaas cabdiweli cali online barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka shabeellaha hoose